munaasabadani ballaaran oo ka qabsantay gudaha masjidka Khaliil ee magaalada Burco ayaa ahayd munaasabad loo sameeyay qalin jabinta 10 arday oo dhameysatay xifdiga Quraanka Kariimka ah ee markaska Khaliil ee magaalada Burco. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay badiba culimada kala duwan ee gobolka Togdheer, isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka, waalidiin iyo sidoo kale marti sharaf kale. ugu horeyntii waxaa la faahfaahinay munaasabadaasi ka bixiyay maamulaha markaskaasi al-ma'muur bil ilmi wal ibada. dadku markay sanad kala sugu yimaadaan meelo oo qofku waxa weey meel jooga ka hadlayo, dadka dhawaad waxa ku badan qof uu faanayo oo waxaasaan qabanay iyo waxaasaan qabanay dadku way ku wadateen saadaladu wixii aan lahaynba qaarna waxba qaban baa yiri markaan wax warman aan leen waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun saturduna ila 'alim al-ghayb wa shahada fayunabbiukum ma kuntum ta'malun. xafladan aan ku qabanayna maatiin koowaad waa xafladii dhowr soddonaad ka ku qabanay ardayda markaska ka baxdayna dhowr iyo konton arday gaariyaan arday fara badan baa markaas waxa markaska ka baxday imikana waxa weeyaan ardaydu maantana waxa weeyaan 10 kamid ardaydu ma baxaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantii ba khayr naga siiyo anaga iyo macallimiinta kale arrinkan wadaba ilaahay noo fududeeyo culimadana waxaan ka doonaynaa noo timo inay noo duceeyaan in ilaahay arrimaha adduunyaha arrimaha aakhirada ilaahay hagaajiyo. geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeeday culimadii kala duwanaad ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi kuwaas oo bogaadiyay ardayda si qalin jabisay. nabigu عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والسلطان المقصد. وإن يسين إله لو ينسين يوحكم ذا تذكر كتابك الله بها كقبت حفظية إلا وين يسيه. ورتم مناسبة نقيمها صيلة قرآن كين إنه دائر تشعل يسينه والد يا معلم با وأرض يمركو قرآن كردبية كحد ناضو مراجعيه ضنايه كعمل فلو تربية وأي وهلسو أنا وقضب كاسان آدي آدو أتكيني وحادو دعذا مركو قرآن كردمية اللي يوم العمد وي كلا دماده طبعا إنه يسكول كي حق يسلو تشيديو تعبكي يا وقتكي يا دالكي قالينا لبابيو آدي آدبا مركز كان يا معلمين تيسا يا والدين تي لشقيسي يا أرضيدا قرآن كردميسي يا كوا ديغانا يا الله سبحانه وتعالى وقتكو ده هو بركيو قرآن كالله سبحانه وتعالى هكو أنفعه إلهي وحوي يكوي ملكو قاده الدنيا آخرة الله سبحانه وتعالى كدغو. هذا كتاب أنزلناه وكتاب أنا سويت كني مبارك وأنا بركيسيه يسوى بركيسيه عدة برتاوي بركوبسة عدة أخرستاوي بركوبسة عدة كودغتاوي بركوبسة عدة لغو أخرياوا بركوبسة ولغو بكسنيا مبارك محالو سوتشي ليدبروا آيات كيسا إلا لغو تدبروا أو لغو فكروا أو لغو دغمو إيو وليتذكر أولو الألباب يينا وحقو قاطان kuwa marka uquusha caafimaadka qabta kuwa indheer garadka ah ilaahay diinta ha inoo ilaaliyo ilaahay bulshada ha inoo islaaxiyo ardayda wax baratay sidii loo ilaalin lahaa sidii quraankoodii loogu ilaalin lahaa sidii diintoodii loogu ilaalin lahaa waa arrin u taala de markaska culimada iyo madaxda iyo magaalada insha Allah taala intii quraanka xifdiday waa loo sheego xijiya oo ku dhaqan gala oo ku amal fala oo ku tukada oo ilaaliya baa la yiri inta beebka ku soo jirta dariiqii quraankii baranaysa marka ugu horeysa waxaan leeyahay awoodda iyo xeelada bini'aadamku waa wax yar oo kooban waxa tala saarataan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala isticaano weydiistay ku kaalmeeyna quraanka barataan oo haddii aan Ilaahay ku kaalmeeynin baran maysaan haddaan Ilaahay waafajin baran maysaan marka labaad ikhlaas iyo niyad wanaagsan qofku inuu barto Ilaahay inuu ku anfaco fi aakhirada aynu tashano caruurteena nin walba oo joogan aniga qaar badan dhameeyay ay joogan nin walba oo joogan inaynu habayna caruurtan laga doonayo inaynu dhisno marka waalidiinay halka ha kaga hadhna maanta xaflad baa loo qabtay ha ku soo gabagabeynina ku dadaalo qorshe xiga waxaan u hambalyeeyaa runtii sheekha iyo culimadiisa kale ee hawshan inta soo daadihin halka soo gaarsiiyay aad iyo aad ma siihin ilaahay ka khayrsiyo anigu ma hada celinaya oo aan ku amaanaya oo aan ku bogaadinaya laanahu amaanta iyo bogaadinta iyo qofka xaqiisa in la siiyo waxay inoo sii fududeynaysaa camalkeena inoo socdo maamulka markiskan oo ugu horeeyo al-ustaad al-faadil mudiirka markiska gabagabada hadalladii munaasabadaasi laga soo jeedinayay waxa halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer. waxaan u duceynaynaa sida culimada horeba waalidiinta macallimiinta cidii xafladda soo abaabushay Ilaahay jazaa khayr Allah ka siiyo ciisiga sharafna Allah ku siiyo waa jaamacad weeye marfish lama oran karo waa jaamacad weeye jaamacadii diinta laga ka soo baxay weeye ee bilowga aasaaskii marka cilmigu uu farabadan yahay insha Allah waxaan jecelahay ardayda maanta aflaxday waa in sidii culimada hore ay sheegtay idinkuna
aad diinta iyadan ka tegin mar walba qalbigii qulubtayda ku jirto gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyinka kala duwanaa lagu guddoonsiiyey ardaydaasi dhammaysatay xifdiga qur-aanka kariimka ah ee markaska khaliil ee magaalada burco waa Khalid Bakayle fogaana ragga xorta Star TV burco.